ummad waliba oo ku nool daafaha dunida waxay leedahay astaamo iyo dhacdooyin gaar ah oo dalkaasi laga xuso dadkiisuna ay xusuustaan waxaa jira maalmo gaar ah oo habmaamuus loogu sameeyo si loo weyneeyo dadka baalka dahabka ka galay dadkoodana sharaf iyo karaamo ku leh maanta oo kale 15 May waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed waa maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL oo ah 13 dhalinyaro ee ka dhiidhiyay gumeystihii xilligii xornimo-doonka Soomaaliya waxaana xilligaasi ka soo wareegtay 74 sano waxaana sanad waliba laga xusaa gobolada dalka intiisa badan SANADGUURADII 74 ee ka soo wareegtay aasaaska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana meelaha sida aadka looga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed oo ah goob astaan u ah dhalinyaro hamigoodu yahay daldhis iyo nabad waarta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano iyo kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ururada bulshada dhalinyaro leh wiilal iyo gabdho oo ku nool magaalada Baydhabo ayaana ka soo qayb galay ugu horeyntii waxaa munaasabada 15 May ee Baydhabo ka hadlay Ustaad Mustafa Sheekh Abdulaahi oo ka mid ah dhalinta da'da yar oo ah barayaasha Baydhabo iyo waliba Cabdinaasir Caalin Ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah isla markaasna ah gudoomiyaha degmada Afgooye iyo tababare nololeed Nuur Abdi Jimcaale oo marti ku ahaa magaalada Baydhabo waxaana ay ku dheeraadeen muhiimadda maalinkan ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadalkay oo keedan ka dhalinyarada aan oo dhiiri geliyo runtii way balaha dhalinyarada waa hoog dalku inta badan madaxda oo baasurinta way baraase dhalinyarada waliba waa u baxda dalku mustaqbalka dadkii hogaamiye lahaayeen laakiin dhalinyarada way baaminsana intii oo dhalinyarada mustaqbalkana dhalinyarada hadda roobdan intuu aaminsana sababtoo qofku waxyaabaha lagu xuldo yeelada laakiin hadda way buu kartiis oo qoontis dhalinyaro kasta oo le kartan aan le hoolaasan le way balanaha waa dhalinyarada mustaqbalka waa dhalinyarada geek roobdu dhalinyarnimada intii wal fayleeto way kamid dadka nan oo shaacir way baray alayta shabaab yaud yawman faakhbiruhu bima fa'ala al-mashib dhalinyarnimada hal mar leh inagati wala hatii ay sameeyay markay waayilnaya macnaha sameeyay la shilaayay markuu qof kasta dhalinyarnimada iska faa'iideysaday tiinta kale dhalinyarada waan sheegay shalay waynay hundursi jarayna dheer jaray way tiina waxa geega in madaxda bariyay laakiin geega wayna milaray waxa geega wayna madaxda geega wayna gado doonay madaxda bariyay sinnaana ogolaanay wal mustaqbal intuuna waxaan qaltaagna laakiin tan hadda soona wala ku wada fadhi wada jirin iskaalada fadhi horumarka deegaanada Koonfur Galbeed oo milaray ku shaqeeyo fadhi dhalinyaro maanta wax badan aan qaban karnaa si gaar waxa ula hadlay dhalinyarada ilaahay wuxuu nagu manaystay nimcooyin iyo awoodo caqli kartida aqoonta iyo firfircoonida ka mid tahay maanta on dhalinyaranahay waxaan qaban karnaa wax ka badan waxa aan qaban karno maalinta aadaadu naga daba timaado maanta aan dhalinyaranahay waxaan qaban karnaa in ka badan inta uu qaban karo qof walba dunida jooga maxaa yeelay waxaan haysanaa firfircooni aan maalin dambe heli doonin maanta waxaan haysanaa baahidii ugu darneed iyo kheyraadkii ugu badnaa isku beegista labadaas iyo inaan yaani micnad u yeelno nolosheenana waa wax inaga mustaqbalkeena dhalaalinahay aan ka kacno hurdada oo aan dadkeena iyo dalkeena u helino bulshadeennana aan ka yaani kala dagaalano wacyigelinna aan ka siino in kheyraadkeena oo jooga fursadihii oo taagan inaan baahi ugu agbaabano inaan dawarsi iyo caawino un sugno ugu dambeynna waxaan idin leeyahay dhamaantiin maasantiin wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha maamulka Koonfur Galbeed Abdulaahi Abdi Umar Fanax oo xil weyn iska saaray qabsoomida munaasabada 15 May ayaa hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona xusuusiyay taariikhdii lama ilaawaanka ahayd ee dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan taariikhdii ay ka tageen ururkii dhalinyarada SYL maanta waa maalin weyn dhalinyarada Soomaaliyeedna ku weyn gaar ahaan kuwa dhalinyarada Koonfur Galbeedna ku weyn sida uu wasiir Xasan tilmaamayna kaliya ma ahan inaan xusno iska kala tagnay macnaha aan u qabanay munaasabadan iyo munaasabadaha kale ee dhalinyarada ciyaaraha loo qabto waa laga leeyahay ayaa waxay tahay in taariikhdii ay dhigeen nimankii aas-aasay
ururkii xornimadoonka SYL oo aan maanta ka joogno sanad guuradii 74aad in ay u noqoto dhalinyarada maanta joogto iyo kuwa ka dambeeyaba cashir taariikh ay wax ka bartaan wado ay maraan runtii halgamayaashii SYL ee ka koobnaa 13 waxay u dhigeen dhalinyarada Soomaaliyeed jiilba jiilku ka dambeeyo taariikh aysan iloobin waxay u jeexeen wado ay maraan inta ay dunidana jirto dhalinyarada maanta jirta ee koonfur galbeed ku dhaqan waxa looga baahan yahay ayagoo darsigaasi tixraacaya ama dib u eegaya inay xaaladda dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan midda koonfur galbeed ay wax ka qabtaan koonfur galbeed waxay u baahan tahay in amniga lagala shaqeeyo hooyooyinkiini aabayaalkiina iyo caruurtiini iyo walaalihiina waxay u baahan yihiin nabadgelyo iyo xasilooni waxay u baahan yihiin wado ay maraan waxay u baahan yihiin iskuulaad waxaasoo dhanna waxay ku jiraan xoogga iyo maskaxda dhalinyarada maanta joogta ugu dambeyntii munaasabada ayaa barbaarta Baydhabo waxa ay ku soo bandhigeen ayaar dhaqameedka ay caanka ku yihiin taasi oo ay ugu dabaaldegeen 74 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska dhalinyarada Soomaaliyeed xilliga oo ku beegnayd 1943 xuska sanad guurada 15 May oo sanad waliba laga xuso gobolada dalka ayaa sanadkani halku dhigeeda waxa uu ahaa nabad iyo nolol maadaama dalka uu madaxweyne ka yahay mudane Maxamed Abdulaahi Farmaajo dhalinyaraduna waa kaydka dhabta ah ee bulsho walba ay leedahay Abdinaasir Musharaf telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo